dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laba haween ah ay ku lug lahaayeen qaraxii 24 bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay lala beegsaday guriga dowladda hoose ee magaalada Muqdisho laguna dilay duqii magaalada iyo 8 qof oo kale. Dowladdu waxay sheegtay in gabadhaysa soo miidaamise ay qabtay baahiyaha gaarka ah isla markaana ay ku tagrifashay caadifadii loo hayay. Dowladdu waxa kale oo ay sheegtay in weerarkaasi ay ku gacan siisay gabadh kale oo iyada la shaqaynaysay. Dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in labada haweenka ah ay qaateen fasaxyo isku dhow isla markaana ay u safreen dhulka ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Waxay sidoo kale dowladdu sheegtay in baaritaankii loo baahnaa aan la marsiinin markii la shaqaalaysiinayay labadaasi qof ee dumarka ah. Haddaba dowladda Soomaaliya ma shaacin magacyada labada qof ee dumarka ah, laakiin baaritaan ay samaysay idaacadda Voice of America gaar ahaan barnaamijka galka baarista ayaan ku ogaanay in labada gabdhood ay magacyo qalad ah siiyeen dowladda Soomaaliya markii la shaqaalaysiinayay. Gabadha ay dowladdu sheegtay inay isqarxisay ayaa in muddo ah isticmaalaysay magaca Basiire Cabdi Maxamed, laakiin magaceeda dhabta ah waa Maryan sida uu ogaaday galka baaristu. Gabadha labaad ayaa iyana ku shaqaynaysay magaca Degan, hase yeeshee magaceeda dhabta ah waa Hodan. Waxay sidoo kale Hodan ka been sheegtay iskuulka ay dhiganaysay markii shaqada la qorayay. Hodan waxa la aaminsan yahay inay weerarkaasi ka badbaaday isla markaana ay u baxsatay dhulka uu ka taliyo ururka Al-Shabaab. Baaristaasi waxa kale oo aan ku ogaanay in markii ay fasaxa qaateen labada gabdhood ay fasaxaasi ku horeysay Hodan kadibna Maryan ayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegyadii xorriyadda Soomaaliya ee 26 Juun iyo 1 Juulaay. Wararka aanu ka helay dhinaca amnigu waxa ay sheegayaan in Maryan ay ku dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadaha 26 Juun iyo 1 Juulaay oo labadaba uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya. Hase yeeshee waxaa baaritaan ku jira inay doonayeen inay bartilmaameedsadaan madaxweynaha iyo in kale. Sidoo kale waxaa baaritaan ku jirta inay labada munaasabadoodba ka qayb galeen. Wararka kale ee dhinaca amniga ee aynu helay waxa ay sheegayaan in laba digniinood ay bixiyeen laamaha amnigu kuwaasi oo ku saabsan weerarro dhici kara. Mid ka mid ah labada digniinood waxa uu si gaar ah u tilmaamayay in weerarkaasi lala beegsan karo xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Wararka kale ee dhinaca amnigu waxa ay sheegayaan in ka hor intii aysan fasaxa aadin Maryan ay u tagtay Allaha u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayna u sheegtay inay u tagayso dhakhtar ku yaala dalka Hindiya, taasi oo ay ka been sheegtay sida ay xogaha amnigu sheegeen. Waxa kale oo ay wararku sheegeen in gudoomiye Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow uu siiyay Maryan lacag dhan $10,000 si ay isugu soo daweyso. Waxa kale oo aan baaritaankaasi ku ogaanay in maalintii uu qaraxu dhacayay labada gabdhood midkoodna aan lagu samaynin baaritaan isla markaana ay ka gudbeen goobihii baaritaanka iyadoo aan wax baaritaana lagu samaynin. Wararka amnigu waxa intaas ku dareen in gabadhii baaritaanka ku samayn lahayd xilligaasi ay u baxday waqti kooban oo biririf ah. Labadaasi gabdhood ayaa la sheegay inay markaasi kadib tageen xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ay ka codsadeen inay la kulmaan. Hase yeeshee kaaliyihii gudoomiyaha ayaa ku adkaystay inuu mashquulsan yahay oo uusan qaabili karin. Gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir waxa uu ku dhaawacmay weerarkaasi. Waxa uu ka warramayaa sida ay wax u dhaceen. Horta shirka waa shir arbaco kasta la qabto, waxa uuna ku saabsanaa shir la yiraahdo tubaha. saas ogtahay xukuumaddu waxay samaysay qorsho oo loogu magac daray tubaha. Tubtan waxay ka mid ahayd tubta dhaqaalaha, gaar ahaan waxaana looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta caasimadda sida dhismaha laamiyada, nalaynta iyo canshuuraha iyo nadaafadda iyo bilic soo celinta ayaa laga hadlayay. Marka saacaddu markay ahayd 10 saac aan ku qiyaasiyay bar ayaa waxaan mar kura ka war helnay nin kastoo dhulka jiifa. Anigu shakhsiyan markaan iska hadlo waxaan soo kacay anigoo gacanta dangiigsanayo oo dhulka fadhiyo oo maskaxdeeduna ay maqan tahay. Kadibna waxaan kusoo baraarugay anoo isweydiinayo waxa meesha ka dhacay. Markaan kor u fiiriyey waxaan arkay cid igu soo daadanayso. Waxaan isla markii igu soo dhacday qarax in aniguna la egtay. Kadib ayaa waxyar tartiib maskaxdeyda soo laabatay, aan ogaaday inaan joogo xaruntii gobolka Banaadir oo shirka ka socday. Waxaan maacday inaan soo kaco, waan kici waayey, laakiin markii dambe ayaa niyadda waxaan ku fikiray haddii sidaan aan kusii joogo in cadowga uu nagu soo galo halkaas uu nagu xabadeeyo. Sidaasi ayaan soo baxay oo si xoog leh aan soo istaagay. Sidaasay marka qaraxii uu u dhacay, laakiin anigu maqal ahaan xitaa qaraxa ma maqal, anuu dhulka yaala mase arkin marka hore.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta xus ducaah u qabatay gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaana garoonkii hore ee kubadda cagta ee Banaadir loogu magac daray Injineer Yariisow